The story you have got is completely, entirely, perfectly, and absolutely partial. It's false, totally baseless. All I can say to you, I can't do that to my people. That's false, that's untrue. If I have never did anything wrong to any Somali. But there was a man. Cornel Yusuf Abdi Ali oo ku magac dheer Cornel Tuke oo kamid ahaa saraakiishii dowladii kacaanka kana soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa waxa daba dhigtay maamulka ka soo tafiirmay jamhadda SNM oo gumaad iyo xasuuq baan ka geystay geyiga Soomaalida. Cornel Tuke ayaa sagaashameeyadii sida Soomaali badan oo dagaaladii Soomaaliya ka cararay iska dhiibay dalka Canada. Cornel Tuke oo ah shakhsi lagu yaqaan turaale iyo dad jacayl ayaa waxa eedayn u soo jeediyay hadaadigii jamhadda SNM oo colaad gaamurtay u qaba dadka deegaanka SSC iyo dowladii dhexe ee Soomaaliya. waxa ay ku eedeeyeen inuu Cornelku ku lug lahaa dad lagu laayay magaalada Gabiley eedayntaasi oo loo gudbiyay maxkamadaha dalka Canada. baaritaanna ay sameeyeen saraakiisha garsoorka maxkamadaha dalka Canada ayaa ku soo idlaaday in wax dembi ah lagu waayay Yusuf Abdi Ali halkaas oo markii dambe kolkii ay soo dhamaatay dacwadii oo Cornelku u wareegay dalka Mareykanka. kiiskaas loo gudbiyay maxkamadaha dalkaasi Canada ee ku soo idlaaday been abuurka cad kadib ay jamhadda SNM waxa ay qaadan waayeen qaabka uu dhucusubay mishankoodii xaqdarrada ku salaysnaa ee ay la doonayeen Cornel Yusuf Abdi Ali Tuke. waxayna jamhadda SNM xoogooda isugu wareejiyeen in awoodda ay saaraan sidii Cornel Tuke ay dusha uga saari lahaayeen dhacdo dagaal oo dhex martay jamhaddii mucaaradka ahayd ee SNM iyo dowladii Soomaaliya ee xilligaasi talada haysay. waxayna mar kale dacwad ku soo oogeen Cornel Tuke kadib markii ay soo bandhigeen lafadad waa hore geeriyooday oo qaarkood ay ku geeriyoodeen dagaalo sokeeyo oo dhex maray beelaha ka soo kala jeeda Burco iyo Hargeysa. Cornel Tuke ayaa u wareegay dalka Mareykanka oo nolol cusub ka samaystay sida bani aadamku ay ugu hawlan yihiin noloshooda gaarka ah ay raadada ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen daruuriyaadka nolosha sida caafimaadka, nabadda, aqoonta iyo waxyaabaha kale ee nolosha qaabeeya. iyadoo arrintaasi looga xun yahay Cornel Yusuf Abdi Ali ayay mar kale jamhadda SNM dabagalan Cornelka si ay u meelmariyaan cadaalad darrada ka dhanka Cornel Tuke. warar toddobaadkan soo baxay ayaa sheegaya in mar kale Cornel Tuke xabsiga la dhigay iyadoo weli ay socdaan baaritaano lagaga salgaarayo kiiska eedaynta ah ee loo jeediyay Cornel Tuke. waxaana galka kiiskan gacanta ku haya baarayaal Amerikaan ah iyo dad Soomaali ah oo dacwad ku oogaya Yusuf Abdi Ali. jamhadda SNM oo Cornel Tuke ku eedeynaysa inuu geystay faldambiyeedyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa iyada lafteedu waxay geysteen xasuuqyo ba'an oo ka kala dhacay gobolka Awdal oo ay maalin cad weerar ku qaadeen magaalooyinka Boorama iyo Dilla iyo dhanka kale gobolka Sool waxayna gumaadeen shacab Soomaaliyeed. jamhadda arxanka daran ee SNM gobolka Cayn magaalada Buuhoodle, Woodwood, Sool joogto, Kalshaale, Hagoogane iyo deegaanka Balhadhac ayay ku laayeen shacab Soomaaliyeed oo waxba galabsan oo isugu jira carruur, arday, waayeel, dumar iyo reer xoolo dhaqato ah. haddaba jamhadda SNM oo la aasaasay hilaadii 80-maadkii bal aynu dib u midhicsanno xasuuq wadareedkii 4 February 1991 ay ka geysteen magaalooyinka Boorama, Dilla iyo deegaano tuulooyin ah oo hoos yimaada gobolka Awdal. inta lagu qiyaasay 1800 oo qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo isugu jira nooc walba oo bulshada kamid ah kana soo jeeda gobolka Awdal ayay maalin cad xasuuq wadareed u geysteen jamhadda SNM taasi oo xaqiiqada laga qariyo indhaha caalamka. dhacdadan oo sanad walba laga xuso gobolka Awdal qaar kamid ah goobjoogayaasha ayaanta iyo ehelada dadka sida arxanka daran loo xasuuqay aynu maqalno hadaladoodii qaar kamid ah. anu saaxiib dami baan ahay dhiig baa iga maqan walaalkay baa la dilay walaashiga uurla la dilay sadigay baa la dilay kuwan adeerka waa la dilay boqolaal baa iga maqan ina ka Hargeysa jooga sidoo walaalkii u raadiyaa oo waxa soo foqaanan mamnuuc leega dhigaa أنا ولي بالدولة دي أيها ولد قال أهين ولي بالصلاة دينا لو متكن أنت سمي ذا بدي الشيء جنازة عيدكم متكن درب والله لبقى فم باوك عيد أبوك اللي هو يسوى الإسكندر في يوم هنون تاني في النور لو قص باخد ده أحسن هنون تاني أركب بيلك يكون عيار النار عتلبى إذا صدق من بقاك أحسن إذا اللي كنت مجرد طالما القدر خسومي باكو جرا كهذا أرجع maanta waxay uga dhigan tahay maalin midow waa maalintii gobolka Awdal ee xasuuq ka dhacay ee dhibaatada aad u ballaaran ka dhacday marka reer Awdal maanta maalinta sida dadka kale u taariikheynayaan wixii soo gaaray dhibka ka soo maray iyo dhibtay soo mareen u taariikheynayaan waxaan leeyahay Awdal iyaguna inuu taariikheeyaan imika dadkii xasuuqa u geystay waxa la yiraahdaa waa mujaahidiin marka kuwa ay laayeen iyagu maxaa la oranaya maxaa loo bixinayaa taasida waan u taasiyeenayaa insha Allah gacan ka gardaran ba ku dhacday Allah naxariisto jannadii Ilaahay ka waraabiyo
waanu faataxaanaya waxaa markhaati ma doontaa in jamhadda SNM ay xasuuq ba'an ka geysatay gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo gobolka Awdal xilligii uu maamulka Somaliland madaxweynaha ka ahaa Axmed Silaanyo ayaa waxaa dhacay tacadiyo badan iyo gabood fallo Somaliland u geysatay shacabka reer Cayn arrintaas oo ilaa hadda aan ka bixin dhagaha Soomaali badan iyadoona noqotay xasuuq dad shacab ah ay u geysteen taangiyada BBga iyo BMka ciidamada militariga Somaliland oo aan cidi isweydiin ku dhawaad 200 oo nin oo jamhadda SNM ku xasuuqday gobolka Cayn kuwaas oo beel ahaan ay isku beel yihiin Korneyl Yuusuf Cabdi Cali Tuke oo maamulka Hargeysa ay u daba socdaan dhacdo 8-maadkii dhex martay jamhadda SNM iyo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee talada la wareegay 1960kii magacaygu waa Roodo Qulle Cabdilaahi aabayaasha iyo ehelkayga iyo ragayga way maxay tahay barbaarteedii waa ku saabeebayaasha loo mariyay waa kuwaas magacaygu waa Roodo Qulle Cabdilaahi aabayaasha iyo ehelkayga iyo ragayga way maxay tahay barbaarteedii waa ku saabeebayaasha loo mariyay waa kuwaas isku soo wada duubo dadka ay isku deegaanka ka soo jeedaan Korneyl Yuusuf Cabdi Cali ayaa arrintaasi horay uga hadlay iyadoona haatan ay muujiyeen sida ay u tahay dulmi cad eedeymaha loo jeedinayo Korneyl Tuke waxaan sheegayaa Nuux Taani iyo Sacad Muuse Fariin baan u diray Muuse nima Nuux Taani ahayn oo tukow dhimanaya ma jiro Nuux baasta macaana nimaan ahayn wallaahi baan dhulbaanta looga waayeen oo bilaahi baan looga waayeen hal wiil oo nooc doona Nuux ku kharajiye isku qarxiyaan dhulbaanta laga waayeen والله بيدان u sameynaynin inaad ragayga mid Mareyka joogiyo mid Afrika jooga aad baacsataan kuwiina dhulkayga ay dhex maraan ragayga hadaan ficilka weyn anaga ay leeyna suuqi qaxinay oo wallahi Nuux hadii nin dhulbaanta oo kharajiye la waayo anoo naaga nafteeda ku biimaynay in ummad Soomaaliyeed oo qabaa'ilihi intay is abaabusho ay qof muwaadin oo Soomaaliyeed keligii ku eedayso oo dibadaha ku beegsato oo khilaafkii beelaha ee gudaha Soomaaliya ka jiray dibadaha loo raro arinta waa ka digaynaa saxna ma aha ummadda Soomaaliyeedna wax soo kordhaya iyo wax laga faa'iideeyaa midna ma jirto khilaafka inaga inoo dhaxeeya beel ahaan inaga ayaa dhamaysan karna wixii faldabiyada ka dhacay inaga ayaa go'aan ka gaari karna inaga ayaa ka heshiin karna ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa hoggaanka Soomaaliyeed ee markaa jira ayay u taallaa taa marka waa ka digaynaa in khilaafka qabariga loo raro dibadaha oo Soomaalidu dibadaha ay isku beegsato